war degdeg ah waxaa lagu soo waramayaa inuu geeriyooday madaxweynihii Waqooyiga Kuuriyada Jong. Madaxweynahan ayaa waayihii la soo dhaafay waxa uu ka xanuunsanayay dalkaasi, waxaana warbaahinta wadankaasi ay si xawli ah u soo tabinayaan geerida hogaamiyaha wadankaasi. Jong ayaa waxa uu ahaa hogaamiye aad dalkaasi xoog u haysta, waxaana ay Jong dalkiisu kamid ahaa ama uu kamid yahay wadamada adduunka ugu quwadda weyn leh, waxaana hadda caalamku si weyn u hadalhayaa geeridaasi. warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan geerida Jong, waxaana la sheegayaa in uu dilay COVID-19 ama coronavirus oo waayihii la soo dhaafayba dalka ama wadamada caalamka saameyn baan ku hayay. hogaamiyahan geeriyooday ayaa waxaan jirin ilaa hadda hogaamiye kamid ah hogaamiyaasha caalamka oo ka hadlay, waxaase war hadda soo dhacay ay sheegayaan in warbaahinta dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ay xaqiijisay. COVID-19 ayaa waxa waayay la soo dhaafay aad ugu sii faafay wadamada caalamka, waxaana uu dilay dad ka badan 200,000 oo qof oo kala nool wadamada caalamka. haddaba wuxuu ku soo kordhay geerida Jong, halkan ayaad ka daawan doontaan. Fadlan channelkan subscribe dhaca calaamada kambalaalka furta muuqaalkana saaxiibayaal si share garaya. Nabaday.